bismillaahi raxmaani raxiim kulan wanaagsan qodobada ugu muhiimsan wararka soomaalida iyo caalamka waxaa ugu dooron xog cusub oo laga helay heshiiskii nairobi ka dhacay maalmo ka hor cabdinaasir seeraar iyo cabdirashiid xidig waxaa la leeyahay qasab ayaa looga dhigay in ay heshiiska saxiixaan waxaana ku dhacday dani waaseeto 700 ayay ku dhowdahay dadka la diiwaan geliyey guud ahaan Soomaaliya cudurka COVID-19 kuwaas oo hadda meelo kala duwan oo dalka ah kala jooga dadaalkii dawladdu ay wada hal bacaal lagu lisay ayuu noqday cabsida waa ay sii kordhaysaa iyadoo dadkuna ay hadda u muuqdaan in ay dareemayaan saameynta cudurka corona maamulka Puntland fadeexad culus ayaa hadda ay wajahayaan hogaankooda Cabdiraxmaan Faroole xilligii madaxweynaha uu ka ahaa Puntland ilaa hadda oo siciidani hogaamiyo caqabada jirtay iyo sida loo soo bandhigay arintaas waxa ay hadda dusha ka saaran tahay Siciid Cabdullaahi Dani qabar aan wanaagsaneyn oo laga soo sheegay magaalada Dhuusamareeb beelaha qaar waxa ay bilaabeen inay seeftooda gasha kala baxaan xilli madaxweyne Qoorqoor uu fadhiga ka kacay digniin culus oo dawladda Soomaaliya ay soo saartay kuna aadan fatahaad laga cabsi qabay inay ku dhuftaan meelo ka mid ah dalka haddii aan laga hortagin dawlad goboleedka Jubbaland si kulul ayay uga hadashay awoodda mar kale ee dawladda federaalka isticmaalayso wasiir Maxamed Ibraahim Darwiish oo lagu qasbay in xasarada cusub uu ka hadlo iyo goodinta uu soo diray qodobka dibaddana waxaa ugu dooron xubno ka tirsan dagaalyahanada Daacish iyo maleeshiyaad hubaysan oo ku dagaalamay qaybo ka mid ah dalka Ciraaq dhimasho iyo dhaawac ayaana jirta sida la leeyahay u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan taariikhdu waxay ku beegan tahay 3 bisha 5 ee May sanada 2020 warkii oo fidsan aan ku bilowno shirka heshiiska lagu saxiixay maalmo ka hor magaalada Nairobi ee Axmed Madoobe iyo waliba dhinacyada Jubbaland hogaankeeda ayaa hadda waxa soo baxay warar dheeraada ila madax bannaan ayaa wararka maanta waxay u sheegeen in ay jirtay qasab dawladda Kenya ay uga saxiixday heshiiska isla markaana ay jirtay cagajugleyn iyo in caruurtooda laga rari doono Nairobi iyo meelaha ay ka joogaan dalka Kenya Cabdirashiid Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar ku darso dhaqaale badan ayaa ay ka sameeyeen xarumo ganacsi gudaha Kenya waxaana dawladda Kenya ay ku qasabtay mas'uuliyiintaas isbedel doonka heshiiska Axmed Madoobe ay la galeen inkastoo si cad aan loo ogeyn waxa uu daaran yahay heshiiska iyo waliba sababaha ku qasbay inay saxiixaan haddana dadka agdhow dhinacyadaas heshiiska saxiixay waxay sheegeen in dawladda Kenya ay ku cadaadisay saxiixa heshiiskan iyagoo xitaa aan raalli ka ahayn xubno ka tirsanaa maamulka Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in heshiiskaas uu ahaa mid afgarad ku dhacay isla markaana ay Cabdinaasir Seeraar iyo Cabdirashiid Xidig oo lagu daray Sheekh Daahir Axmed Cabdullaahi ay awood qaybsi ku yeelanayaan golaha wasiirada cusub ee dhawaan Axmed Madoobe uu soo dhisaayo magaalada Kismaayo wararka naga soo gaarayay waxay sheegayaan in xaaladdu hadda ay u muuqato mid ka yara duwan sidii loo maleynayay iyadoona dawladda Kenya galaangalkeeda Jubbaland uu laba jibaarmay muddooyinkii dambe dawladda federaalka ee Soomaaliya weli waa ka aamusan tahay heshiiska Nairobi 23 bishii hore ee April ay ku saxiixdeen xubnaha hogaanka u ahaa golaha isbedel doonka Jubbaland iyo Axmed Islaam Madoobe inkastoo dawladdu ay hore u sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashadii madaxweyne Axmed Madoobe uu ku soo baxay bishii Agoosto sanadii hore 2019 bal markan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa mar kale ku dhawaaqday warbixin dadka qaar ay cabsi ku sii abuurtay 70 kiis oo hor leh ayaa cudurka COVID-19 laga helay gudaha dalka 3 bukaan ayaana la xaqiijiyay in 48 saac la soo dhaafay ugu geeriyoodeen dalka caabuqa COVID-19 mid wuxuu ku sugnaa gobolka Banaadir deegaanada Puntland iyo Somaliland ayaa labada kale ay kala joogeen 70 qof ee kiiskooda cusub yahay waxa la sheegay 22 inay dumar yihiin halka 48 ay rag yihiin 3 qofood ee ka biskooday xanuunka ayaa sidoo kale wasaaraddu ay sheegtay in dhammaantood ay joogaan magaalada Muqdisho 67 ka mid ah bukaanada cusub waxa la sheegay in laga diiwaan geliyay caasimadda taas oo weli u muuqata in ay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho hogaaminayso dadka ugu badan ee cudurka uu soo fosaarayo wasiirka caafimaadka dalka Fawziya Abikar Nuur ayaa ka waramaysa bal xogii ugu dambeeyay
ee corona iyo gudaha Soomaaliya 48 saacad ee ugu dambeysay waxaa soo kordhay 70 xaaladood oo positive ah rag waa 48 dumarna waa 22 xaaladaha soo kordhay 67 kamid ah waxay joogaan gobolka Banaadir 3 waxay joogaan Somaliland dhimashada waa 3 qofood waxaa ka bogsaday 3 qofood tirada guud ee dadka bogsaday waxay noqonaysaa 34 waa tahay daawadayaal balmarkan maamulka Puntland oo haatan 22 sano ilaa 22 sano si cagacageenay waxa la sheegaa in uu yahay maamulka ugu horeeyay ee hanaanka ku dhismay federaalka hooyada federaalka ee Soomaaliya inkastoo Puntland ay tahay haddana ilkaaniyaadka iyo agabyada sida laga baahnaa maamulada hoggaanka soo maray waxay ahaayeen kuwo aan waxba ka muuqanin xukuumadihii Cabdiraxmaan Faroole Cabdiweli Cali Gaasi iyo Siciidani oo hadda hogaamiyo waxa la leeyahay waxay ku fashilmeen inay wax ka qabtaan arinta soo laabatay cusbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo toddobaad ka hor waxaa jirtay roob ka da'ay magaalada Gaalkacyo waqooyigeeda oo cusbitaalka Puntland ugu weyn ku yaalo ay biyo galeen gudaha cusbitaalka goobaha loogu talagalay in bukaanka la jiifiyay iyo waliba meelaha dadka bukaanka la jooga ay jiifan lahaayeen lacag gaaraysa 700,000 oo dollarka Mareykanka ayaana maamuladaas Puntland hogaankooda soo maray mid waliba uu lacaga iska ururiyay si loogu dayactiro cusbitaalka magaalada Gaalkacyo xukuumadii Cabdiraxmaan Faroole midii Cabdiweli Cali Gaas iyo Siciidani ayaana intaba eedaas ay wada qabsanaysaa in canshuurta ummadda laga qaaday lagu dhiso iska daayay tii dib looga ururiyay ayaan meelay ku baxday la aqoonin hadda 23 sano ayay ku sii dhawaanaysaa jiritaanka Puntland waxaana nuuc kasta oo canshuur ah oo ay ka qaado bulshada Puntland dib aan loogu celin cusbitaalada iyo goobaha asaasiga ah maadaama bulshada ay kaalin muhiim ah ka qaataan cusbitaalada iyo in wax ay dadka u qabtaan waa hagaag bal markana aan fiirino wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland General Maxamed Warsame Ibrahim Darwish oo shir jaraa'id ku qabtay Kismaayo ayaa si kulul u weeraray hanaanka dowladda iyo waliba awood tijaabinta cusub ay la timi xiisadda cusub ee gobolka Gedo ayaa salka ku haysa kadib markii qaar ka mid ah guddoomiyaashii degmooyinka gobolkaas xilka xayoobin lagu sameeyay maalin ka hor gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee gobolka Gedo ahna madaxa amniga gobolkaas Cusmaan Nuur Xaaji Cusmaan Macallimo ayaa waxa uu ku xiran yahay dowladda federaalka isla markaana asaga ayaa xilka qaadista sameeyay wasiir Darwish ayaa sheegay in dowladda federaalka ay gobolka Gedo ka abuurayso jahwareer siyaasadeed oo aad u xun isla markaana waxa uu sheegay in arrimaha muddooyinkii dambe ka socday gobolka Gedo iyo wixii lagu abaabulay magaalada Muqdisho ay dowladda gadaal ka taageerayso wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose Jubbaland Maxamed Warsame Darwish waxa uu dowladda federaalka ugu baaqay inay ka fiirsato arrimaha ay ka wado gobolka Gedo si gaar ah wasaaradda arrimaha gudaha heer federaal ayuuna ka codsaday in ay arrimahaas gobolka faraha kala baxdo oo ay Jubbaland u madax banaanayso gobolka dowladda federaalka oo dhamaantiis waxay ku magacaabi kartaa goboratoore u magacaaban kartaa waana goyn kartaa wasaaradda arrimaha hoos waana hoos geyn kartaa laakiin iyadoo la isticmaalayo la raacayo sida dastuurka waafaqsan oo sharciga ah haddii aanay waafaqsanayna anigu waxaan isleeyahay waxa hadda socdaa maahan wax sii socon kara waa wax abuuri kara dhibaato iyo maamul xumo iyo iska horimaad waxaan leenahay ka dowlad gobol ahaan annagu ilaa iyo hadda waxaanu aqoonsanahay oo sharci ah guddoomiyaashii hore ee horey dowlad goboleedku u magacowday Jubbaland ayaa waxaa la leeyahay aad ay uga xumaatay qorshaha dowladda madaxweyne Farmaajo hogaamiyo ay ka damacsan tahay gobolka Gedo iyadoo dadka xilka laga qaaday uu ku jiro gudoomiyihii degmada Garbaharey Iimaan Cadow Kaarshe waxaa dhinaca kale jiray kulamo gaargaar oo siyaasiyiin iyo aqoon-yahano ka soo jeeda magaalada Garbaharey iyo odayaasha dhaqanka ay la lahaayeen Iimaan Cadow Kaarshe kaasoo diiday xilka qaadista lagu sameeyay macada sida ay dowladda federaalka kaga falcelin doonto baaqan ka yimid Jubbaland oo aysan waayihii dambe isku wanaagsanayn tabalmarkana wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay warbixinta saadaasha fatahaadaha iyo daadadka roobka guga ee bisha May ee aynu ku guda jirno waxaa warbixin kooban
la leeyahay wasaaraddu waxay uga hadashay heerka biyaha labada webi ee Shabeelle iyo Jubba ee Soomaaliya mara. Roobkaas oo sidoo kale daadad ka dhasha ay saameynteeda reebi karto. Fatahaadaha webiyada iyo daadadka ka dhasha xilli roobaadyada oo ah kuwa soo noqnoqday ayaa waxay saameyn ku yeeshaan bulshooyinka ku nool meelaha ay ka dhacaan daadadka. laba ka mid ah saddexdii xilli roobaad ee ugu dambeysay waxa ka dhashay oo ay sababeen xaalado bini'aadanimo oo saameyn ku yeeshay dadka iyo weliba dhaqaalaha bulshooyinka ku nool meelihii ay ka dhaceen. Haddaba waxa ugu dambeysay magaalada Baardheere oo karkaarada webiga Jubba uu ku jabsaday toddobaadkii la soo dhaafay iyo weliba roob mahiigaana oo ka da'ay dhinaca magaalada Qardho ee Puntland oo dad ay ku dhinteen hanti badanna ay ku baaba'day. Qodobka dibadda intaanu aadin bal aan ka hormariyo. La taliye ka tirsan hoggaanka maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka hadlay arrin ka taagan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Soomaalidu waa beelo wada dhashay, wada degan ama darisa. Marka koobaad wada qaybsiga dowladeed, qaaraan ururin ama mag dhiibid intaba waxa ay isku xigaan dhalasho ama deegaan. Xil ka qabashadana waxa ay tahay mid lagu sarleeyo arrimahaasi. Haddaba Cabdixafiid wasiirka oo la soo shaqeeyay inta badan guddoomiyaashii gobolka Banaadir soo maray ayaa waxa uu dhaliilay hanaanka Cabdiraxmaan Geeda Qorow degmada Dhuusamareeb guddoomiyaheeda. Wuxuu sheegay inuu kala qaybin ku sameynayo beelaha deegaankaas. Wuxuu sheegay in magaalada Dhuusamareeb ay hadda ka jirto wax aan loo dulqaadan karin. Qaybinta Geeda Qorow sidii loo magacaabay waxay caddeyn u tahay buu yidhi heerka garaadkiisa iyo gacalnimo oo aan filayo inay dad badan oo madaxnimo sheeganaya dhaqan iyo weliba siyaasadba ay la qabaan. Sidaas awgeed wuxuu sheegay inaan laga haybaysanaynin arrinta uu wado. Wuxuu sheegay Cabdixafiid wasiirka oo ka soo jeeda gobolka Galgaduud magaalada Dhuusamareeb in arrintan aysan u dulqaadan karin haddii ay yihiin aqoon-yahanka iyo dadka ka soo jeeda deegaankaasi. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa hadda waxa uu doonayaa inuu xalliyo arrintan iyo falcelinta ka timid taasoo beelaha dega bariga magaalada Dhuusamareeb ama Ceyr Bari la yiraahdo ay iyagu qayladhaan ka keeneen arrintan islamarkaana ay dad badan ka caroodeen. bal markana qodobka dibadda inta la og yahay tobaneeyo ka tirsan maleeshiyaad ka dagaalamay dalka Ciraaq ayaa lagu dilay kadib weerar ay kala kulmeen maleeshiyada kooxda isku magacawday dawladda Islaamka ama Daacishta. War-saxaafadeed ka soo baxay kooxdan maleeshiyaadka waxa ay xaqiijiyeen in weerarkaas dhimasho iyo dhaawac ka dhashay. Howlgalkan ayaa waxa la leeyahay waxa ay dawladdu il gaar ahaaneed ku haysaa sida ay wax u dhaceen baaritaano lagu hayaa. Mustafa Al-Kadimi ayaa waxa uu sheegay in arrimahan soo laabtay ay wax ka qabanayaan waana ra'iisul wasaaraha waddanka Ciraaq ninka dhawaan loo magacaabay Al-Kadimi. guud ahaan daawadayaal intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa wararka Soomaalida iyo caalamka intaan wararkan oo kale dib isku arki doonno. Nabadgelyo.